magaciisa waxaa lagu soo koobay DJ Amid waa qaa'in waa zaaqid waana caasi ay kala dhinteen waalidiintiisu ma xanuunsana meelna ma la'a wuxuu isku riday cudur halis ah oo loo yaqaano genetic disorder oo la kala dhaxlo loona yaqaano cystic fibrosis kaasoo burburiyo gebi ahaanba sanbabaha subxaanallah adiguna cudur qabin haddii aad alle ka bariso cudur inuu kugu dhaco si dhaqaale aad ku tahriibto laguga aruuriyo sidee u aragtaa daawade muuqaalkan marka hore like saara si saaxiibo badan uu gaaro siina sheergareeya si bulshada Soomaaliyeed uga digtoonaato arrinkan uu ku dhaqaaqay wiilkan dhalinyarada ah gabadhan waxay weeye waa tiktooraysadii ku hayday wiilkan caaswaalidiinka isbitaalka markii hore sheekadu waxay ahayd baranki hadda se waxay markaas iyadu sheegaysaa xaqiiqada rasmiga ah ee ka dambeysay arrintan waa ay yaabtay markii aragtay in Soomaalidu ay qalbi jilicsan yihiin oo dad markaas muxsiniin ay u badan yihiin inay soo caawinayaan wiilkan bal arag waxyaabaha ay oranayso شلون حجي في دي جامد وحون استعمال أكسجين كنفيجا كانت كيبي مشين واي ويقف كسر كان باش أكسجين كنقول بهذا مركو استلقي معنا أنا كل شيء إنه برينك سوينا ما نوين إنه كقراونا كل عقد سنة يعني أهم حديث لها والله بدر إلهي كهاي هتسلسل مدير كلا تصنعني وحد حلو شيء وحسن يسمع فكجري anugan caaswaalidiinka balilahan idinku dhaarshay arka isagoo sidaas u yaala ay wuxuu leeyahay cudur halis aan qabaa war dad baa caafimaadkii waxay markaasi u horayaan malaayiin dollar isagana cudur aan alla u keenin ayuu leeyahay waa qabaa si aan Yurub iyo Ameerika ugu tahriibo codad cadayma ayaan idiin soo gudbinayaa oo sheegaya in ninkan uusan xanuunsanayn ee wixiisu ay yihiin been iyo waxyaabo uu soo dhoodhoobay ilaahay ayaan ka magan gelaynaa waxyaabaha ninkan wado qof kasta oo Soomaali ah ee lacag u diray wiilkan caaswaalidiinka ee cudurka beenta isku riday ilaahay maalinta qiyaamo waxbuu ka weydiinayaa waxaa jira dad masaakiin ah ee baahan ee beerka dhulka ku haya iyo boga iyaga u dira ilaahan idinku dhaarshay xoolihiina ha u dirinina anugan caaswaalidiinka ee markaa ka jeclaaday inuu waxa weeye cudur beena isku rido Ameerikana u tahriibo wiilkan caasiga ku ah waalidiintii dhalay isla markaana caanka aaladda TikTok ayna ka kari waayeen islaamka ilaahay isku akaysi oo ka dhaxbax TikTok aada ka dhaxniikine baahiyo kuma hayse ayaa raba inuu jafta ama hawdka maro oo uu galo tahriiba lagu tagayo Mexico kadibna looga sii gudbayo United States ama Mareykanka dalka Turkiga inta uu joogay ayuu isku dayay inuu dalbado visa Brazil ah nasiib xumo diidmo ayuu dafay wuxuu yimid Soomaaliya wuxuuna u gudbay Kenya oo uu rabay inuu ka xariisto processa kana lagu tagayo Brazil waxa loo sheegay inay ku baxayso tahriibkana lagu galayo Ameerika oo rafaadka badani ka soo horeeyo aduna lacageed oo dhan $15,000 sidaas darteed wuxuu isku riday cudur halis ah si uu u gaado Soomaalidan hayin raaca ee uu lacagtaasi uga aruursado subxaanaka ya cadiim wiilkan cidiisu ma baahna oo aabihiisa waa maamulaha xarunta hormuud ee Via Roma ee degmada Xamar Weyne sidoo kale guryo waaweyn oo dabaqya ayuu ku leeyahay Xamar Jajab waa hantiilo loo shaxaad tago ma ahana cayr waana arrin la yaab leh uu sameeyay wiilkan dhalinyarada ah hooyadiis waa ganacsato caan ah oo isaga kala goostay Imaaraadka iyo Yurub dhexdeeda dhammaan walaalihiis waxay ku kala nool yihiin Yurub iyo Ameerika isagoo kaliya ayaa Afrika ka jooga isna waa caasi ay dayriyeen waalidiintiisu waana saaqida nolosha ka dhacay oo balwadi ay dilatay isla markaana waalidiintiisu ay har habeen habaar ay ku ridayaan dad badan oo Soomaali ahna ay markaasi la yaabeen arrinkani Soomaaliya iska ilaaliya habhabta iyo hayin raaca oo ka digtoonaada dhagartan ciyaal suuqan uu wado aku qasli ragga stress iyo buuq waxa u dhaxmarsi oksijiinka cabayeen iyagoo tubal cay iska dhuuqayo 10,000 soo xarootay oo goolkooda buuxaan stress ku dhaxfuray inta xal yaabeen cid loogu yimid wixii fadhiisteen kafee hashkis la dhahayo amidka iyo amjadka midka asiga la wado iyo cadna model iyo big bro iyagoo wada mask u xiran xal fikiray waxaan si ku xalina arintan xal loo baahan yahay isla markii CC camera ashagna way bixeen bila u tageen arinta waxay dhaheen gabka dheh cash money qaado taas meel iskaga xireen hadda waxay ku maqan yihiin inay keenaan isbitaal ama isbitaalka way ka tageen waxay rabaa inay keenaan عديمة بوك أو إسبتال إسوس من دكتور بين إيه ربنا كينان لازم هو بيج برو عندنا موديل وشكله كدم بعروض خوخص به لكن ورسك جدا بإيمانها قبل إن الشخص يكبرين قبل ده كنتي عديمها كنت شخص ولا كبري لكن